dhammaan martida sharafta leh ee ugu horeeyo wasiirka maalgashiga wasiirka xigeenka waxbarashada agaasimayaasha barnaamijka shaqo qaran iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha xildhibaanka gudoomiye ku-xigeenka gobolka salaadiinta oqaasha haweenka quruxda badan ee horteeda fadhiya iyo dhammaan martida kale ee goobtan ku sugan iyo mas'uuliyiinta jaamacadda barwaaqo waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi kolley waqtigoo gaaban iyo salaadii in haysa goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan ku soo ururinayaa saddex kelmadood mid waa mahadnaq midna waa soo dhaweyn midna waxa weeye intii aanu imika ku sugnayn goobtan quruxda badan leh wixii ay isheedu qabatay runtii ka mahadcelinteeda iyo waxa weeye gudbinteedaba kelmadda soo dhaweynta anoo ku hadlaya afka dhammaan shacabka ku dhaqan degmada DARASALAAM iyo gaar ahaan tuulada ballayga cas dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo laab xaadhan aad baad u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan waxa weeye xafladan aynu ku daahfurayno waxa weeye jaamacadda barwaaqo mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo cid kasta oo gacan ka geysatay waxa weeye inuu barnaamijkan hirgalo waxa ugu horeeya waxa weeye sidii ay noo sheegeen Axmed Faarax Adare wasiirkeenii hore ee cadaaladda iyo waxa weeye suldaanka Maxamed Sheekh Faarax iyo Cisbaan Badmaax iyo odayaasha deegaankan oo runtii muujiyay bisayl iyo quruxda waxa weeye ummadda reer Soomaaliland dhamaantood ay leeyihiin iyo soo dhaweynta waxa weeye bulshada kale ee caalamka inooga imanaysa waxa weeye qaabilaad aynu qaabili karno runtii waxa weeye qofkaan ilaahay u mahadnaqin binaadankana uma mahadnaqo aad baan intii ka soo shaqaysay mashruucaas inuu halka yimaado aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaantiin waa mahadsantiin haddaan u gudbo waxa weeye maanta ay taariikhdu tahay 23kii bishii 7aad 2019 waxaan nimi goor ku beegan 10kii subaxnimo waxa weeye goobtan aynu joogno oo ka tirsan tuulada ballayga cas runtii anigu waxaan ahay gudoomiyihii degmada DARASALAAM hore uma soo gelin goobtan waxaan la sugayay maalinta xafladda si waxyaabaha aan ku arkay markaan goobta imaado ay farxad geliso waxa weeye dareenkayguna markaa uu noqdo waxa weeye dareen waxa weeye ka turjumi kara wixii aan arkay runtii intii hore dhan waxaan iskaga ilaalinayay inaan gudaha jaamacadda u soo galo inaanay maalinta aan xafladda haddii la idhaa ka soo qayb galayno inaanay igu keenin waxa weeye wax magaran saaca igu kalifay inaanan farxad badan inaanan u muujin waxa weeye iskuulka runtii waxaan aad ugu farxay markaan halka ka soo galay markii ugu horeysayba qaabka uu u dhisan yahay iskuulku oo runtii waxa weeye indhaha caafimaadka qaba waxa weeye markay arkaan qaabka uu iskuulku u dhisan yahay runtii way ku farxayaan iyagoo gudihiisa iyo waxa yaalaba aan eegin markii ugu horeysay waxaan ka bilownay class waxa weeye la sii diyaariyay oo waxa weeye ay habla ku sugnaayeen oo waxay noogu sheegeen inuu ahaa qaybtii science runtii waxa weeye qof waloo de aqoon leh uu garan karaa waxa weeye waxa yaala iyo waxa weeye de qaabka loogu talagalay waxa weeye in aqoonta lagu gudbiyo runtii aad baan ugu farxay anigu ka shaqsi ahaan waxa weeye qaabka ardaydii ku sugnayd goobtaas ay noogu sharaxeen waxa weeye classka aan ugu galnay waxyaabaha ay ku bartaan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waxay markii koowaad bana tuseen albaabkii aanu ka soo galaynay inuu yahay albaabkii ugu quruxda badnaa waxa weeye meel la galo ugu wanaagsanaa aad baa mahadsantiin dhammaantiin anigoo waxa weeye classkii hore la yaaban haddana waxayna geeyeen class labaad oo ay noo sheegeen in waxa weeye carruurta yaryar ay ku barbaariyaan markii aan arkay ay noo sheegeen in carruurta weliba carruurtaas ay yihiin carruurtii tuulada runtii ka gudoomiyahan iyo ka degmahan waxa farxad gelisay in waxa weeye arday waxa weeye ka kooban degaankii waxa weeye ballayga cas inay halkan mustaqbalka haddii la yiraahdo iyaguna ay noqon doonaan kuwa loo barbaariyay inay halkan ardayda ka baxda inay noqon karaan ardaydii halka wax ku baraysayna iyaga laftigoodana aad baan ugu mahadnaqayaa classkan ugu soo dhaweeyay aad baa mahadsantiin idinku
runtii kalaasyadii kale aynu galnayna waxa weeye la mid bay ahaayeen oo runtii ardaydu waxay na tuseen waxa weeye qaabka quruxda badan leh ee waxa weeye loo barayo sidii ay wax u gudbin lahaayeen inan baa kaftantayoo waxay tiri haddii awal la odhan jiray rag yaryaraysi male maanta waxaan tusaynaa inaan dumarku inaanu yaryaraysi lahayn waxaan idinka markhaati furaynaa waxa weeye inaan dumarku yaryaraysi lahayn runtii ay kaga wanaagsan yihiin raggana waxa weeye barbaarinta iyo gudbinta waayo dumarku waa hooyooyinkii guryaha waxa weeye ka soo saarayay ama wasiir ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado qof kasta oo maanta lama jeeranayo oo la leeyahay waa qofka ugu wanaagsan waxaan filayaa hooyin baa soo gacan qabatay marka waxa weeye runtii hooyooyinkana si gaar aan ugu mahadnaqayaa kolley iyagu hablaha wax dhigayaana mustaqbalka haddii la idhaha waxay noqon doonaan hooyooyin bay noqon doonaan marka insha allah sidaa wanaagsan ee iminkana tuseen waxaan doonaynaa inay guryaheenna waxa weeye sida quruxda halkan taalloo kale inay mustaqbalka haddii la idhaha guryaheenna ay u gudbin doonaan runtii aad baa u mahadsantihiin waxaa kaloo aniga farxad gaaraya waxaynu ognahay mar kasta iskuullada noocana waxa weeye dadkeenna waxaa jira dad badan oo waxa weeye barbagandeeya oo yidhaahdo waxa weeye ardayda diinta lagaga saaraya waxa weeye macallimiin ajaaniba wax u dhigaysa waxa weeye gaala wax u dhigaysa waxa weeye runtii inta dacayadaha fidinaysana waxaanu leenahay war wixii wanaagsan ee soo kordha waxa weeye waa inaynu soo dhaweyno shay kasta oo wanaagsan iskuulkan waxa weeye waa iskuul jaamacaddan waa jaamacad u gaara hablaha oo keliyaata macallimiinta u dhigaysa waa dumar keliyaata runtii waxaa ka mid ahaa su-aalihii aynu weydiinaynay qaabka waxa weeye isdhexgalkooga iyo diinta islaamka qaabka waxa weeye ay ku yihiin runtii waxyaabo badan oo waxay noo sheegeen diinta islaamka markay magaalooyinka aynu joogno ay kaga wanaagsan yihiin halkan waxay noo sheegeen inay muxaadarooyin galaan waxay noo sheegeen inay qur-aanka iyagu isbaraan intii baratay maaha intii kale inay baraan waxa weeye waxay noo sheegeen in salaada waqtigeeda macallimiinta laftigooda dhigaya inay waxa weeye fursad u siiyaan inay salaada soo tukadaan inta waxa weeye xumaa ka shaqeynayna waxaanu leenahay iskuulkan iyo iskuulo kale oo lamidi waxa weeye waddanka way ku yaallaan kuwa kalena waa la furayaa propagandada aynu ka dayno iyo waxyaabaha waxa weeye ku noqonaya cambaarta dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waana soo dhaweynaya assalamu calaykum waraxmatullahi